بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkaad naga daawaneysaan waa Sky News TV haddaba daawadayaal wararka maanta waxaa ugu muhiimsan dowladda Taiwan oo ka furatay xafiiskeedii magaalada Hargeysa xidhiidhkan oo muddo soo jiray kaasoo hadda curdina ayaa dowladda Taiwan waxa ay ka dhawaysay in ay furto xafiiskeedii magaalada Hargeysa taasoo ay ku shaaciyeen qodobo muhiim ah oo ay labada dowlad iska kaashan doonaan mustaqbalka dhow sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxa ay furtay ama ay u soo dirtay magaalada Hargeysa safiirkeedii ay u soo magacowday dhawaan sidaan warar ku hayno dhawaan xiriirka Itoobiya iyo Somaliland hoos ayuu u dhacay kadib markii ay dowladda Itoobiya ay si toos ah ula safatay dowladda Soomaaliya taasoo muddooyinkii ugu dambeysay la lahayd xidhiidhiyo aad u dhow oo ay la yeelatay dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ahaa qaar aad isugu dhow oo saaxiib ah sidoo kale Somaliland waxay ku guuleysatay nidaamkeeda diblomaasiyadeed ay la samaysanayso xiriirka dowladaha ku yaala Afrika sida Masar oo aynu ogeyn inay u soo dirtay wufuud heer sare ah sidoo kale China ayaa iyaduna quudareynaysa Somaliland inay la samaysato xidhiidh diblomaasiyadda Somaliland ayaa waxay noqotay mid aad hormuud ugu ah oo laga bilaabo shirkii Djibouti wixii ka dambeeyay Somaliland waxay guulo waaweyn ka soo hoysay diblomaasiyadda caalamka iyo xidhiidhada ay la yeelanayso dalalka adduunka haddaba daawadayaal dhanka kale dowladda Soomaaliya laamaheeda ammaanka ayaa waxaa lagu amray inay sameeyaan foojignaan dheeraad ah kadib dagaalkii ama weeraradii isku xigay ee ka dhacay saldhigga dhexe iyo weliba hotelka Elite sidoo kale warku waxay sheegayaan in shaqada laga joojiyay taliyihii saldhigga dhexe taasoo lagu sababeeyay dhacdadii ka dhacday saldhiggaas ay weerar ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab iyo dhacdadii ka dambeysay ee ka dhacday hotelka Elite taasoo lagu amray laamaha ammaanku in ay sameeyaan howlgallo degdeg ah si looga hortago weerarada qorsheysan ee kooxda Al-Shabaab haddaba daawadayaal wararkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته